السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي أصحاب تقاليجي ولا لها شربت له وولاشين إلفيس جنال كأجدا ونسان وإمكي أنشح جنال ما شاء الله إمكي أنشح وإذا ولا يابي حقوق بحي ولا يابني أنا حتى ويا بنا ذيك لما يا بنتين إن شاء الله تعالى إمكي أنشح وإذن صلى الله بندونا بإذن الله الكريم أمش قروحنا نفتر كذا وذاتك أي كدبة تكتاي وذاتك أيه كتبة تكتي ما شاء الله سفر أيه آدي آمنوا أيضا سفر أيه كم قنتاي ما شاء الله إلى سبحانه وتعالى سونا بذعليو آمنوا وير عاجز نيد وير حنوصنيت ذا أوجيدين لنا دكتور أيه أبحضي إن شاء الله تعالى دكتور كاس أيه نكم قنتاي بإذن الله إلى سبحانه وتعالى سونا بذعليو ولا لها إمكي أنشح وأن أكسونا هي إنا أدرستين إمكي أنشح جرلك إنه أدرسدي وأكسونا هي آمن إنا أدرستين آمن قروح وأكسونا هي ما شاء الله waxaan filayaa inay soo noqon doonto aamina dhowaan biidn illaah ayaa rajeynayaa labadooduba ay soo noqon doonaan insha allahu tacaala ayaa rajeynayaa anigana dee waxba maba kala nihinba imkay anshax mar haddaan marna hooyadii ahay marna walaashii ahay isla meeshii waayo asxaabteyda qaaliga walaalkiin imkay anshaxna usoo duceeya biidn illaah xanuuna caajis way iska jiraan mana buurno maasha allah آمنوا نفتر كذا وير عاجز انتهي إن شاء الله تعالى وحي دعاء وحقينا أصحابتك وحران أمكي أنشح بريهان ويدومين ووذ أقنها إن دومين إن شاء الله تعالى ويصورنا ونقندونان بإذن الله الكريم انت كديب أصحابتي إذا شرفت له وناكسن وحن ربا إذن شيغو أبايا الصوماليات وبلاشينا أيا وحي نغسو عطتي دعاء in loo duceeyo oo ilaahay loo baryo oo ilaahay awlaad looga baryo inuu ilaahay subxaanahu watacaala awlaadku irsaaqo abaayadaas wallaahi oo ila wadaagtay arrimo aan la yaabay wallaahi oon ku ooyey ayay ila wadaagtay oo waxay tiri waa lii abiyuusa maalin waxaa igu dhacday bay tiri aniga oo soo fiiriyey bay tiri soo buuqday gabar dhashay istibaal ku soo buuqday ayaa waxay tiri wiilka ee dhashay ayaa saa u qaaday bay tiri wiilka qabo wiilkii markaan qabtay oon soo bariidiyey oo wixii umasha u geyn lahaa aan ugu geeyey istibaalkii ayadoo weli istibaalka jirtaan kusoo booqday bay tiri qof waxaana is oranayay bay tiri qofka keliya oo kuugu dhawaaye saaxiibtinimo iyo wanaag iyo dhan walba waxay tiri markii istibaalka abaayo aan kusoo booqday oo wixii aan u waday aan u geeyey abaayo yaa waxay tiri cabaar baa meesha isaga shaahshaahaynay cabaaraa ku sheekaysanay dumar kale ayaa yimaadeen dumarka kale tiri aniga cunugu hoo qabo ayaa lay dhahay laakiin dumarka kale lama dhihin bay tiri hoo qabo oo looma dhiibin marka waxay tiri dumarka kale cunugi looma dhiibin aniga ayaa la ii dhiibay oo la yiri bay tiri hoo qabo dumar kalena lama oranin bay tiri oo yimaaday meesha anigoo marka yaaban bay tiri oo la yacni micnaha maxaa yacni laga damacsanaa hawshaan oo saan ay ku dhacday aniga oola bay tiri ayaa waxaa dhacday bay tiri ayaan soo baxay markaan soo baxay marka waxaa joogtay bay tiri meesha gabar iyadana wadaad oo wanaagsan ayaa meesha joogtay gabar kaloo isku fiican nahay oo shaqada meel aan iskala shaqeynana way joogtay bay tiri meesha markaasaa waxay tiri bay tiri tii hadda baxaysay markay ii soo gashay hoo cunuga qaba ayaan ku dhahay tiri maxaa u dhahday aala su-aalay tiri markaasay tiri bay tiri acuudu billaah waa ma dhashay inay cunuga iga cuntaan ka baqa oo waa naxaba markay ii soo gasho waan ku sasa bay tiri subxaanaka yaa ilaah ayada dhashay oo allah subxaana watacaala inaan ayadu qasab kumay samaysan cunugane qasabna kumay keensanine mana ay soo iibsanine allah subxaana watacaala ayaa siiyey ilaahay ma waxay moodaysaa ayada cunuga uu siiyey inuu tan u waayey miyay moodaysaa ilaahay subxaana watacaala may ivan waxaa dhacda gabadhan ay madhashada ku caynayso ayaa ka mu'minsan oo ka taqwad badan gabadhaa ka mu'minsan oo ka taqwada badanna ilaahay subxaana watacaala samirkeeda ayuu eegayaa iyo qalbigeeda ayuu eegayaa uma uusa waayin allah subxaana watacaala awlaad cidna uma waayo awlaad allah subxaana watacaala cid walbana wuxuu eegaa taqwadeeda iyo samirkeeda alxamdulilaah adigoo hooyo oo dhashay oo xanuunka aragtay oo awlaad la-aanna soo aheyd awlaadna rabbi ku siiyey sidee ku oran kartaa qof haweenoo adiga kula mido hooyo inay noqoto rabto oo ilaah weli uuna wax siinin sidee ku oran kartaa ma dhashada inay cunuga iga cuntaan ka cabsaday sidee ku oran kartaa laa xawla walaa quwata illaa billaah ma naga suurtoodaa inaan dhahno ereygaas maya nagama suurtoodo inaan ereygaas niraahno dad
aan taqwad haysanin diinna haysanin ayuu allah subxaana watacaala ubad ku irsaaqay oo awlaad uu siiyey ma ayadoo islaam ah oo mu'minad ah ma kula tahay inuu ilaahay subxaana watacaala awlaad u waayey maya uma waayin allah subxaana watacaala awlaad laakiinse markeeda ayaa lagu eegayaa insha allahu tacaala gabadha walaasheen ah waxaa ilaahay subxaana watacaala oga baryeynaa inuu ilaahay awlaad barakaysan siiyo inuu ilaahay awlaad kheyr qabta siiyo inuu ilaahay awlaad ducaysan ku irsaaqo ilaahay waxaan ka baryayaa gabadhaa ereygaa lagu dhahay inuu ilaahay subxaana watacaala oga raayo oo ilaahay uu guul la kulmiyo ayaan ilaahay subxaana watacaala oga rajeynayaa asxaabtiina ku xiran mk anshax waxaan rabaa inaa gabadha abaaye ah kal iyo laab ugu soo ducaysaan oo si wanaagsan aa ugu soo ducaysaan ayaa idinka doonayaa inuu ilaahay subxaana watacaala awlaad wanaagsan ku irsaaqo inuu awlaad barakaysan siiyo inuu awlaad baariyaa la siiyo gabadha abaaye ah oo ereygaas ku qowshayna waxaan u sheegayaa allaha adiga ku siiyey inuusa ayada u waayin laakiin waxaan ka cabsanayaa nafsiga aa gabadhaa ka gashay inuu cunugaadu wax kale kugu noqdo ama lagaala laabto waayo allah ayaa ku siiyo kugu irsaaqay ilaahay kuguma irsaaqin inaad ummaddiisa aad ku yastood ku tiraahdo waa ma dhasho iyo wax may dhalin inaad ku tiraahdo ilaahay awlaada kuma siinin alxamdulilaah markaad heshay uurki alxamdulilaah ilaahow adaa ku mahadsan allaha igu irsaaqay oo igu dhex abuurayow adiga ayaa ifka iga keeni karo xilligooda markay gaaraan waa inaad ilaahay subxaana watacaala ku barido xilligooda markay gaaraan shinkooda dhammaadana allaha subxaana watacaala oo igu dhex abuuray awlaadan oo igu irsaaqayow waxaan kaa baryayaa inaad ifka iga keento ayagoo nabad qabiyo anigoo nabad qabo waa inaad ilaahay ku barido haddii iman wayaan maxaa samaynaysaa kow markaad uurka aragtayba allahayow awlaad caafimaad qabto igu irsaaq ilaahow awlaad wanaagsan igu irsaaq ilaahow awlaad baariya igu irsaaq mar walba inaad ilaahay subxaana watacaala ka barido weeye allah subxaana watacaala wuxuu kugu irsaaqaayo cidna kuma weydiiye gacantiisa ayay awooddiisa kugu siiyaa laakiin adigu waa inaad mar walba ilaahay wax wanaagsan weydiisato waa inaad ilaahay ka barido cunug caafimaad qabo waa inaad ilaahay ka barido cunug ducaysan waa inaad ilaahay ka barido cunug barakaysan waxweyn ayaa si naga ah ma garanayo diinta 24 saac culummadu way maxaadareeyaan waxbaana loo sheegaa diinta waana la faraa waana loo akhriyaa meesha ay wax naga maraan fahmi waaye ani meesha ay wax naga maraan ayaan fahmi waaye iyo meesha aan u socono aadaan dumar nahay ma garanayo meesha ay wax naga maraan ilaahayow rabbiyow iimaan wanaagsan nagu irsaaq ilaahow samir wanaagsan nagu irsaaq ilaahow hooyo kasto iyo aabbo kasta oon awlaad haysan ilaahow rabbiyow awlaad wanaagsan ku irsaaq oo baariyaal ah asxaabta ku xiran mk anshax abaayadaas aan u wada ducayno dhammaanteen aan u soo ducayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wabilaahi towfiiq